qaar ka mid ah wadooyinka magaalada Cerigabo oo burbur iyo dayactir la'aan ka jirtay isla markaana ay bulshada magaalada Cerigabo ay ka muujiyeen cabasho kadib markii warbaahintu dhawaan soo bandhigeen dhibaatada ay gaadiidleyda iyo bulshadu kala kulmi jireen wadooyinka googo'ay. Mas'uuliyiinta dowladda hoose ee magaalada Cerigabo oo cabashada bulshada ka jawaabayay ayaa wadooyinkaasi waxay ku sameeyeen dayactir iyo inay buuxiyaan meelihii wadooyinku ka googo'een. Injineer Cabdiraxmaan Maxamuud Aadan oo gacanta ku haya hawsha dib loogu dayactirayo laamiyadan ayaa ka warbixiyay shaqada socota. qofkuna inuu yiraahdo waxaan hadda la sameeyay muxuu burburayaa maaha wax walba waa burburaan waana la hagaajiyo waana la dayactiraa insha Allah waxaan diyaar u nahay dowladda sana qorshaheedu uu yahay in laamiyo cusubna samayso magaalada sakad walba ay laami ka dhigto inta burburay ee dayactirka u baahanna walow magaalada wadooyinkeeda aad boqolkiiba ay u fiican yihiin sentigi yare ku soo baxa ee cilada in laga hagaajiyo ayaa dowladda qorshaheedu yahay kabkii ribraabka oo dhagaxaanu kaga xidhnay si aan biyuhu aanay u googoyn labada qodob baan wadada ka qabanay wadooyinkii hore ee magaalada laga sameeyay kuwii cusub ay la sameeyayna waa barbar socdaan. Geesta kale gaadiidleyda wadooyinkan isticmaala ayaa ka dareen celiyay wadooyinkan dib loo dayactiray. badan baan kala kulmi jiray dayactirkeedana aad baan u soo dhaweynay. Ruuxantii wadooyinku dhibaatooyin fara badan baan ku qabnay laakiin iminka dayactir baa lagu sameeyay wadooyin cusubna oo tayalana wala hirgeliyay laamiyada cusub ay ka hirgeliyeen guud ahaan magaalada iyo sidoo kale dayactirka ay ku sameynayaan wadooyinkii hore runtii dhaawacyadu soo gaadheen oo dib loo update gareynayo waxaan rajaynaynaa inay xildhibaan maayirka degmada iyo xildhibaanada isku duuban ay hal intan ka sii badin doonaan. Xildhibaan Yaasiin Xasan Dhaayane oo ka mid ah golaha deegaanka degmada Cerigabo ayaa waxa uu CBA u sheegay qorshahan dib u dhiska wadooyinka iyo dayactirka ay ku sameynayaan. muddo waxaan waday muddo 2 bilood ah waxaan dayactir ku wadnay wadooyinka magaalada Cerigabo kuwii golihii hore dhiseen iyo kuwii golaha yagan hadir jooga aan dhisnay wadooyinkaasi waxay ahaayeen wadooyin dhexdana ka burburay oo roobkii iyo daadadkii ay jareen iyo wadooyin hareeraha ka burburay golaha deegaanka oo maayirka hogaaminayo ayaa waxay sa garteen in lagu sameeyo dayactir shaqaalaha dayactirka wadooyinka ayaa muddo 2 bilood waday waxaan filayaa inay maanta soo gabagabeeyeen feeskii u dambeeyay wadooyinkaas waxay dhibaato weyn ku hayeen gaadiidka wadada isticmaalaya iyo dadka wadada isticmaalaya laakiin hadda alxamdulillah rabbil caalamiin gaadiidkiina waxa weeye oo isticmaalaya wadadii oo la sameeyay oo dayactir lagu sameeyay oo meel kasta ka jabnayd la dayactiray wadooyinka waxa dhibaatada ugu badan ku hayay waxay ahaayeen marka roobku da'an ayaa biyo fadhiisanayeen dabada gaadiidkii iyo shacabkii baa dib ka gaadhay wadooyinkaasna waxaan ugu talagalay inaan daysaa ku dayactirno wadooyinka golo waxay isla waafaqeen in 2 biloodba mar gacan marin lagu sameeyo oo dayactir lagu sameeyo team baa loo sameeyay teamka dayactirka wadooyinka degmada Cerigabo wadooyin cusub na waa soo wadnaa sanadka cusub. Saciid Qurbaawi CBA TV Cerigabo.